computerka wuxuu u baahan yahay in faanka see some issue. waayahay kusoo dhawaada videogan waxaan idinku tusin doonaa sidii aad ugu raadin lahayd alaabta oo aad dalban rabtid inaad Amazon aad keentid. marka midda koowaad waxaa jirto nidaam loogu raadiyo ayaa jirto, laba nidaamaa jirto. waxaa waaye inaad aadid search inaad tiraahdid ama inaad aadid categories. searchka waa halkaa markaad alaabta aad ku raadinaysid, alaabka aad rabtid aad meesha ayaad ku raadin kartaa. midda kalena waa qeybaha oo alaabta aad iibsanaysid ayaad ku raadin kartaa. alaab isla markaas ay xuseeb tahay aad u baahan tahay inaad macnaa magaalada aad soo gelisid. waa aragtaan qeybo badan ayuu leeyahay, haddii pt and personalki ay tahay, packaging and printing, electric haddii ay tahay waad tegi kartaa. waxaad leedahay garden and furniture ayaad aadi kartaa. alaabaha isla markaas oo xuseebka ah oo magaalada ku jiro oo isla markaas lasoo gelin yahay oo trending ah halkan ayaad ku raadin kartaa. isla markaas waad la hadli kartaa shirkadaha, sidaas ayaad ugu raadin kartaa. midda kalena waa search. haddaba labadaba idin tusiyo. midda koowaad waxaa waaye in aad ku raadisid nidaamka haddii aad alaabta garanaysid, waa nidaamka hadda aan idin sheegahayo oo trainka ku saabsan. waayo categorieska waxaa waaye in alaabte ayaa xuseeb oo magaalada soo gelin karaa. marka ma aadan soo raadinin maxaa la dhihi jiray best sellers rank ma aadan kusoo fiirinin, ma aadan isticmaalin Jungle Scout to verify inay macna alaabta meeqa ay bishii iibsantaa, meeqa qofooda competition kula jiro, keliya ma aad soo gelinaysaa alaab noocaas oo kale ma aadan soo fiirinin. marka waxaad directly u aadaysaa categories si aad u heshid alaab isla markaas oo magaalada ay ku cusub tahay oo la iibin yahay. marka inta badan waa inaad researchka aad soo samaysaa, wixii aad soo xaqiijisataa competitionka bishii halii ay gadmato, maxaa la dhihi jiray lacagta oo alaabta loo gado, intaasoo dhan waa soo research garaysay, waa aad taqaanaa alaabta aad iibin haysid. marka waxaan kusoo qaadanayaa meeshaan videogan in aad ku go-aansatay in aad raadisid saacaddii ayaa waxaad u baahan tahay in aad iibisid. si aad u iibisid waxaad leedahay ama aan kusoo qaado in aad raadin haysid iPhone cover iPhone inaad keentid ayaad rabtaa, asoo af Soomaali ku qoran inaad keentid ayaad u baahan tahay, ama magac inaad u samaysatid ayaad u baahan tahay. marka waxaan kusoo qaadanayaa inaad iPhone cover aad raadinaysid. iPhone coverka aad soo ogaatay asoo research kusoo samaysay. marka waxaad leedahay iPhone cover halkan waxaa kugu soo baxayo
warshadaha, brokerada iyo maxaa la dhihi jiray warshadada, brokerada iyo wholesale companies ayaa meesha kugu soo baxayo. laba mid ayaa jirto. halkan waa aragtaan dhibici wuxuu taagan yahay all. intaasoo dhan maxaa la dhihi jiray brokers, retailers iyo warshadaha kulli waa lagu soo taxay. waa aragtaan intaan oo dhan waxaa isugu jiraan, ma kala baxsan kartid. haddii aad doonaysid keliya inaad kasoo iibsatid manufacturada, waxaad aadi kartaa verified manufacturers ayaad aadi kartaa. sidaas oo kaleed waxaad fiirin kartaa customizable ready to ship, alaab mar hore diyaarsan la sameeyey, micnaha waxaa waaye brand ma usoo samaysan kartid, magaca ma kusoo qoran kartid. all suppliers iyo supplierada kale intoo dhan sidaas oo kale, laakiin verified manufacturers inta badan waxaan jeclahay in all inaan isticmaalo si isla markaas aan u helo priceka ugu qiimo jaban haddii warshad ay tahay, haddii supplier ay tahay, si aan u helo anoo isticmaalo shuruudda idin sheegay, si lacagtaada aad ku bixin lahayd oo aysan kaa lumin. marka waxaad u baahan tahay inaad ogaatid nidaamka lagu bixiyo oo lacagta aad kusoo ceshan karta. haddii nidaamyo kale aad ku bixisid lacagtaa ma soo ceshan kartid. haddaba waxaan aadayaa meeshaan aan sameeyo, aan kala baxsado. waxaad u baahan tahay midda koowaad inaad dooratid supplier oo trade assurance leh, micnaha waxaa waaye lacagta waxaad ku bixinaysaa nidaam loo yaqaano trade assurance. haddii alaabto ama lacagta waxaad sii deyn kartaa markii alaabta ay kusoo gaarto. waxaa lagu leeyahay I have received, waxaad click garaynaysaa, aad leedahay I have received, release the money to the buyer. waqtigaasaa lacagta ayaga la siinaya. marka waa nidaamkaas, waa kambaniyada oo ammaankood sugan waay. marka waxaa keliya kuusoo haray kambaniyada nidaamkaas ay leeyihiin. kabacdina waxaad leedahay verified supplier, waa supplierada lasoo xaqiijiyay inay warshad meel ay ku leeyihiin, inay fadhi meel ay ku leeyihiin, inay base meel ay ku leeyihiin, oona shuruudaha maxaa la Alibaba ay buuxiyeen. haddaba markii saas aad tiraadid waad imaanaysaa. waa dadkan dad la aaminsan yahay oo ammaankood sugan. lacagta haddii ay kaa dhunto ama haddii wax qaldaad ku imaado lacagtaad u raacsan kartid. marka waa imaanaysaa, markaad waxaad fiirinaysaa titleka lacagta. waxaad u baahanta inaad ogaatid qiimaha alaabta, halaha ugu yar aad ka codsan kartid. supplierkan haddii alaabtood ay ku qanciyeen, halkan ayaad kula hadli kartaa, halkan ayaad macnaa chat ahaan ula hadli kartaa. meeshaan waxaa waaye haddii aad u baahan tahay kambaniyada inaad isku barbar dhigtid. marka waxaad fiirinaysaa alaabta ku qanciso iyo priceka ayaad iska fiirinaysaa. marka waayahay kan aan soo qaato in aan la hadli rabo, waxaan leeyahay contact supplier, wuxuu leeyahay emailkaada gal. okay, baaswaarkaaba meeshaan la hilmaamay, waqti dheer ayuu naga qaadanaa. marka aan dib ugu sii laabto, contact supplier ayaad leedahay. markaad supplierka la hadlaysid waxay u baahan tahay in aad login aad tiraahdaa. markii aad tirahdid qaybta chatka ayaa kula soo baxayso, isla markaas waxaad qoraysaa waa la hadli kartaa. waxaad leedahay hebel ayaan ahay, alaabtaasaan u xiiseeyaa, waxaan u baahanahay inaan sii iibiyo. waxaad leedahay OEM ma samaysaan, original equipment manufacturer, micnaha waxaa loola jeedaa alaab oo magac aan soo saaran karo, aan sumad aan soo saaran ma samaysan kartaa. iyo su-aalo kale aad qabtid ayaad weydiinaysaa. lacagta meeqaa waaye, kun xaba haddii aan u baahanahay meeqaa waaye, nidaamka aad usoo ship garaysaan waa nidaamkee door to door delivery ma samaysaan. waxyaalahaas ayaad weydiinaysaa. markii aad isku affahantaan ayaa lacagta aad bixinaysaa. marka nidaamkaas ayaa loola hadlaa. laakiinse midda koowaad waxaad samayn kartaa sidoo kale compare kambaniyada sidaad u kala dooratid, waad isku barbar dhigi kartaa si aad u heshid kambaniga ugu raqiisan. kambanigaasaan ka helay in alaab aan ku iibsado, nidaamkan maxaa la jiray coverkanna waa ka helay, aan isku dayo kan aan ku darsado. balkan ma ka helin, waa kasii boodayaa. marka
kan waa ka helay, marka waa kusoo darsanayaa si aan isku soo barbardhigo dhow oo kambuniga ugu wanaagsan, isla markaas aan lacagtiis yar tahay oo maxaa lii jiray alaab fiicanna uu sameeyo. compare ayaa leedahay. markii aad intaas aad tiraahdo halaha company aad ku iibsatid ama halaha company aad jeclaatid inaad alaab aad ku iibsatid ayaad macnaa meesha ku darsanaysaa. haddaba waxaa jiro sida Amazon oo kaleed warshado ama kambuniyo ama suppliero oo mar dhow soo galeen magaalada oo raadinahayaan sumcad iyo sharaf ama dad xiriir connection in la sameeyaan. inta badan kambuniyadaas pageka koowaad ma soo galaan, marka waxaan idinkula talinaa inta badan inaad aadaan pageka dambe. kambuniyada inaad fiirisid, aad sii dhexgashid oo hore usii socotid ilaa i down aad aadid. marka muhiimadda markaad supply aad la hadlaysid waxaa waaye in aad lacagta aad ku bixisid either trade assurance mase PayPal inaad ka bixisid. lacagta labadaas meel waa kusoo celin kartaa, nidaamyada kale way adagta inaad kusoo celisid. haddii uu maxaa lii jiray company uu yahay ama haddii middleman uu yahay, haddii oo retail uu yahay, haddii manufacturer uu yahay, waxaad u baahan tahay adi inaad fiirsid sida danta ay ku jirto alaab qiimo jaban sida ugu raqiisan oo aad ku bixin kartid trade assurance ama PayPal aad ku bixin kartid, oo nidaamka adi aad u baahan tahay in alaabta lagu soo dhoofiyo sida shipmentiga aad ku qanacsan tahay. waxaa jiro dhoofinta nidaamka diyaaradda lasoo saaro, waxaa jiro shipmentiga oo maxaa la dhihi jiray badda lagu soo marsiiyo. inta badan waxaa loo baahan yahay inaad dooratid nidaamka ugu fudud oo dhaqso alaabta ay kugu imaanayso, waa kala qaali noqon doonaan. haddii diyaarad aad codsatid alaabta dhaqso ay ku imaanaysaa, lacagteed waa badanaysaa. haddii oo maxaa la dhihi jiray oo dhoofinta xagga badda aad isticmaashid maraakiib lagu soo saaro ilaa iyo 1 bil oo kaleed ay qaadan doontaa. siday noqotaba waxaad u baahan tahay adi inaad dooratid nidaamka ugu fudud. waxayna ku mid tahay su-aalaha aad weydiinaysid, nidaamkee ayaad alaabta usoo dhoofisaan, door to door delivery ma samaysaan, waa meeqa ayay noqon kartaa, kambuni ma leedihiin. su-aalaha aad u baahan tahay inaad weydiisid ka hor inta aadan macnaa diilka aad siilgaraynin ayaad ka mid tahay. marka shuruudahaas marka haddii aad fiirisid ay buuxiyaan, caadi way alaabta haddii rabo supplier ahaado ama broker ahaado ama middleman ahaado waad ku iibsan kartaa. targetka waxaa waaye uun keliya in aad alaab raqiis ah aad soo heshid $1 $2 ka bacdina nidaam ugu fudud ugu dhaqsaa badan alaabta in lagu soo dhoofiyo, ayadana adoo fiirinaysid dhaqsa alaabta inay ku imaato, qiimaha oo shipmentiga ama dhoofinta inay sii yaraato adoo fiirinaysid. haddaba intaas ayaa ugu muhiimsan. haddii rabo sidaan idin sheegaba qofka rabtaad ku iibsan kartaa. waayahay aan sii gudagalno, intaan company aan soo dooranay aan fiirino. marka waa aragtaan iPhone waxaa lu leeyahay phone case iPhone 14, halkaas ayaad kula hadli kartaa. waxay sameeyaan ugu yaraan dadkan kan waa visitska oo website-kooda ama kambanigooda inta qofood waxa weydiisay, intay saacada ay ugu soo jawaabaan dadka. haddii maanta message aad u dirto ilaa iyo meeqaa saacad ay qaadanaya inay jawaab aad ku heshid. waa sidaas. marka waa aragtaan minimum order halaha ugu yar aad codsan kartid, pricekooda waa 1.25 ayaa alaabta ugu yar, qiimaha ugu yar aad ku heli karta ay ka mid yihiin. waase haddii aad u baxdo waxaad arki doontaa kambuniga magaciisa, nidaamyada aad lacagta ku bixin kartid, payment terms, meesha ay degan yihiin, alaaba ay soo saaraan, lacagta oo sanadkii ay ka sameeyaan ganacsigooda, nidaamyada maxaa la dhihi jiray inta sano ay maxaa la dhihi jiray magaalada ay ku jireen ama suuqa ay ku jireen. sidoo kale gold supplier waxaa waaye waa dad lasoo hubiyey, on-site check micnaha waxaa waaye sidaas oo kale dad oo macnaha meel inay xafiis ay leeyihiin ama warshad ay leeyihiin lasoo xaqiijiyay waaye. assessed supplier waxay la kulmeen maxaa la dhihi jiray shuruudaha Alibaba. trade assurance waxay leeyihiin nidaamka lacagta lagu bixiyo oo aad lacagta aad dhigaysid markii alaabta ay kusoo gaarto aad u ogolaanaysid, aad dhehaysid waa isoo gaartay, waa ay leeyihiin. marka muhiimadda waxaa waaye marka adiga in aad fiirisid beeca ugu jaban. sidaad aragtidba kan wuxuu ku leeyahay 5 xabo ayaad codsan kartaa, laakiin waa $1 iyo noocaas. ka bacdina kan waa 10 xabo ayaad codsan kartaa ugu yaraan, waa $0.5.
marka waxaad isku barbar dhigaysaa kee ayaa ugu raqiisan oo alaabta ku samayn karaan. marka ani waxaan dhihi lahaa intaan aad aragtay kan 500 xabo waa suuqa hadda aad ku cusub tahay inay ku gadmaan kii kalmo 500 xabo inaad ku bilowdid wasaare ila tahay. waxaan dhihi lahaa ani inaan ku baroobayo magaalada 100 ilaa 150. haddaba waxaad samayn kartaa, waxaad fiirinaysaa kuwa ugu raqiisan beecood, kuwaas ayaad macna la hadli doontaa. kasoo qaad 500 waaye kan macna ugu yaraan waxaad codsan kartaa 500, waa kasii boodaysaa, check ayaad leedahay, waa aan check garaynaysaa. kan kale xiga meeqaa waaye lamisi 10 xabo ayaad codsan kartaa, waa diyaar, laakiin beeciisa waa qaali, waa aan check garaynaysaa. beec ahaana kan ugu saaraysaa magaalada dadka aad la hadlaysid. kasii gudub gadaal aan u noqdo kambaniga saddexaad, waxaad codsan kartaa ugu yaraan 10 xabo, $5 macnaha $0.5 ayaa ugu yar. kaas waa la hadli kartaa, waa kambaniga ugu fiican hadda oo qiimaha jaban leh, oo ka bacdan wuxuu leeyahay trade assurance ayuu leeyahay. waa kambani ugu muhiimsan. intooda badan intaan iska dhaafo kan keligiis waa la hadli karaa, balse waa muhiim inaad la hadashid. qaarkood waxaa laga yaabaa in aad macnaha aad isfahmi waysaan, haddana kuwa aad usoo bilowdo. marka ilaa 5 ilaa 10 oo kaleedaad message u diraysaa ki isla markaas isla hadashaan, macnaa aad hadalkiisa iyo nidaamka aad la hadlaysa aad ku qanacdid, qofkaas ayaad ka iibsanaysaa. marka haddaba aan sii guda galo, aan fiiriyo kambaniga koowaad. kambani koowaad waa 1.4, 5 xabo ay codsan kartaa, 1.4 waaye. kambanigan waxaan filayaa wax yar inuu qaali uu ka yahay kuwa kale. kan waa aragtaa waa $0.5, kan waa ugu yaraan waxaa waaye, laakiin kan 500 xabo waaye. kan 500 ayaa macnaa ku reebayso, shuruudaasaan buuxin karin. marka kan waxaan leeyahay kan waa iska aan check garaynayaa midka koowaad, waayo $1 oo kaleedu leeyahay. waxaan rabaa wax isla markaas beeciisa jaban aan wax aan uga heli karo. alright, waa aragtaan alaabta qiimaha ay ku joogto China iyo meelaha kale waqti aad kasoo iibsanaysid. alaabtan markii aad Amazon aad keentidna meeqaa lagu bixiyaa? ugu yaraan $14 ilaa iyo waxay noqon kartaa ilaa $30 ama $20 ay noqon kartaa in cover aad soo gadatid markii Amazon aad keentid. marka faa'iido fiican ayaa lagu sameeyaa. haddaba aan fiirino page kale, kambaniyada kale. kan 10 xabo dhibic maxaa la $0.5 ayaad ka iibsan kartaa halka ugu yar. kambanigaas waa kusii darsanaa. kan 5 xabo waaye, 500 xabo waaye. lacagtiis waa yartahay, laakiin 500 ay soo reebayso sidaan filay. waa ka bixiyay kaas. kuwa kale aan fiiriyo, kan waxaa waaye pricekiisa, kaas waa ka bixiyay. kan waa ugu yaraan lacag $1 oo lacag oo $0.5 oo kale wax kasii yar waaye. marka kambanigaas waa sii haysanaa, wuu igu jiraa listiga. okay, kuwa kale aan fiiriyo, pagekan kale cusub haddaan imaaday. kan 500 xabo waaye, waa aragtaan 500 ay reebayso, waa kasii boodaya. sax waaye, meeshaan ayaan joognay. kambani kale cusub waa kan 100 xabo waaye. kan 100 xabo waaye, diyaar waaye. waxaan rabnaa 100 xabo inaan codsano ugu yaraan iyo wax ka badan. $1.5 waaye. maasha allah, kambanigan waxaa waa isna sidaas oo kale wax $1 ka yar waaye. trade assurance ma leeyahay, waa haysanaynaa. marka haddana kasii soco, haddii oo kuwa kale badan ay jiraan, arowgaas ama falaartaas ayaad ku dhufanaysaa si aad u aragtid. marka inta kambani aan hadda aan la hadli rabno waa 1, 2. kuwa ku check garaysan ayaa la hadli rabtaa 2, 3. waxaan filayaa 3 kambani ayaa dooratay. marka si aad ula hadashid, gooni ahaan ula hadashid, waxaad aadi kartaa halkaas ayaad kambaniyada aad ku aadi kartaa. si intoodaba hal message aad u dirtid, waxaad leedahay contact supplier ayaa leedahay. passwordkayga ii gambiyey hadda mana soo saari karo. aan isku dayo, waxaa la dhihi jiray 503. certain reasons marka accountiga passwordkiisa kasi waaye. marka intaas ayaad u baahan tahay. ka bacdina waxaa waaye inta kale waxaa waaye inaad fariin isdhaafsataan, meeqaa lagu iibiyaa, sidee ay usoo diri kartaa.
haddaba qaybtan waxaa ugu muhiimsan waxaa waaye markii go-aan aad gaartaan laba shay ayaa ugu muhiimsan ayaan dhahayaa. midda koowaad, markaad la hadlaysid kambaniyada waxay qaarkood ku weydiin doonaan inaad Skype kala hadashid, inaad maxaa la dhihi jiray WeChat ama WhatsApp kula hadashid. waa iska caadi, waa la hadli kartaa, laakiinse waa in aad ogaataa wixii kusoo go-aansataan, hataa email haddii uu ahaado, wixii aad kusoo go-aansataan in aad isla markaas maxaa la dhihi jiray aad kusoo laabanaysid maxaa la platformkan Alibaba, aad haddana sidoo kale wixii ku go-aansateen meesha aad ku qorayso aad leedahay hebel waxaan ku go-aansanay in sumadaas la ii soo saaro, qiimahaas in la iigu soo sameeyo, ma sidaas maa ku go-aansanay. markii uu ku dhaho waa muhiim intaas inaad heshid. haddii alaabta wax ay kii kale isbedel iyo kii kale ama qaladaad uu ka imaado, hadhow wixii aad ku hadlayseen ayaad printagaraysanaysaa, attachment ayaad ku samayn kartaa si aad hadhow dood aad ugu furatid, lacagta lagugu soo celiyo. kambaniyada inta badan waxay ma jeclaan in macnaa samcad xumo lagu gudbiyo, marka haddiiba qof uu dhaho alaabta sidaan waaye isla markii lacagti waa usoo refund garaynaa. laakiin haddii oo caddeemo aad haysata, caddeemahaas loo hordhigo waaba. haddii caddeemo aan la haysanin lagu arko macnaa nidaamyo kale waa lagu marsiin karaa. marka waxaad u baahan tahay in aad platformka aad kala hadashid, meelaha kale haddaad kusoo hadashaan, ugu dambeyntii haddana meeshaan aad imaatid inaad kala hadashid. midda kale waxaa waaye lacagta markaad bixinaysid waa muhiim inaad isticmaashid PayPal ama Trade Assurance. labadaas ayaad ugu muhiimsan. labadaas haddii aad isticmaashid lacagta waa soo celin kartaa haddii oo wax qaldaad u imaado. laakiin haddii meelaha kale aad ku bixisid sida bank transfer iyo maxaa la dhihi jiray nidaamyada kada ayaga ay leeyihiin Telegram iyo waxyaalahan wire transfer, way adag tahay in la soo celiyo. marka intaas ayaa ugu muhiimsan si isla markaas alaab aad ugu iibsatid Alibaba. marka intaas ayaan macnaa videogan kusoo gabagabeyn doonaa. wixii su-aalaha commentaha fadlan isku day inaad macnaa aad isla markaas kusoo dartid qaybta maxaa la dhihi jiray commentiga. waxaan isku dayayaa inaan commentiga hadda aan